بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيكذا سيدي الطبنا الطبيب والجاهل والمتكلف دختر أقون لاوه يدبندو وحاوا كنو لانشري مقالة كمذا مقالوين كي مدائن nin ku xeel dheeraaday cilmiga waxdaaweynta waa dhintay ninkii waxayse dadku ku shaqaysan jireen buugtii uu ka qoray cilmiga waxdaaweynta waxaase magaaladii soo degay nin sheegtay inuu yaqaan cilmiga daawada aanse waxba ka aqoon waxaana boqorka magaalada xukuma dad ka lahaa gabadh uu jecel yahay gabadhii ayaa xanuunsatay iyadoo uur leh waxaana loo galay caloosha waxayna noqotay mid xanuun ba'an ka dareemaysa boqorkii ayaa amar ku bixiyay in la keeno nin daawada caalin ku ah oo daaweeya gabadha waxaase la helay hal nin oo daawada caalin ku ah laakiin indhala waxaa looga warramay xanuunka gabadha haya sida uu yahay oo dhan markaasuu yidhi daawada la yidhaahdo magaceeda samharaan gabadha ha la cabsiiyo iyadaa xanuunkan daawo ka ah way noqdeen oo boqorkii ayay warkii u geeyeen mar labaad ayuu amar ku bixiyay boqorkii in la keeno qof garanaya daawada uu indhooluhu soo qoray waxay u tageen nin aan waxba ka aqoon daawada laakiin sheegtay inuu yahay qof aad ugu xeel dheer cilmiga daawo samaynta iyo wax ku daaweyntaba boqorkii ayaa hortiisa dhigay quraaradihii ay daawada dhakhtarka indhoolaha ahi ku jirtay ninkii beenawaaska ahaa ayaa markiiba mid quraaradihii ka mid ah oo sun aan la soo baxay oo mid kale ku barxay oo isku daray suntii iyo mid daawo ah markuu arkay boqorkii sida degdegsiimaha ah ee uu wax isugu dardarayo ayuu u maleeyay inuu yahay nin wax yaqaan wuxuuna u amray in la siiyo isku joog dahab ah iyo dhar wanaagsan gabadhiina wuxuu waraabiyay wixii uu daawada ku sheegay balse isla markiiba waxaa googo'ay gabadhii xiidmaheedii caloosha oo waabay dhimatay boqorkii ayaa amray in ninka la waraabiyo wixii uu gabadha u sameeyay oo daawada ku sheegay isna markii la waraabiyayba waa dhintay faallo mahmaadan waxaa loogu mahmahaa ciddii isku qaada waxaanay aqoon oo sheegata sheegasho beena wuxuu la kulmaa waxaanu mahadin isdhuldhigga iyo aqoon sheegasho la'aantu waa calaamadaha qofka iimaanka wanaagsan kuwa oo wixii aanay garanayn marka la weydiiyo ku jawaab celiya allah yaqaan waxaana alle quraanka ku yidhi ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هنا دهن راع وحاضن علم لهين إلا إن مغلق أرق إيا قلبك والله يسورسنا يا شيكذا سقالي طبنات الجراد والتاجر الحديد جيريو قناعسده برتا حديد كاه waxaa la yiri dhul oran jiray mardaad ayaa waxa ku noolaan jiray nin la wada yaqaan oo ka ganacsan jiray xadiidka ama birta mar ayuu doonay inuu safar aado oo dan kale oo uu lahaa soo qabsado wuxuuna birtii 100 wasladood oo kamida ku amaaneystay nin ay is yaqaaneen hadii uu muddo maqnaa ayuu soo noqday wuxuuna ninkii weydiistay inuu 100kiisii birood u soo celiyo 100kii birood ninkii waa buu iibsaday waana cunay lacagtoodii uu ku iibsaday markii uu weydiistay inuu birihii u soo celiyo wuxuu ku jawaabay war birihii waxaan dhigay meel guriga ka mid ah laakiin birihii waxa cunay jiir horeba aan u ogaano inaan jiirku gowsihiisa ku cuni karin birta tani waa dhacday dhibaato ka weyn tani ma ay soo marin dhulkan ninkii birta lahaa markuu warkaa maqlay ayuu yaabay oo wuxuu ku jawaab celiyay war waa xamdi alle haddii aad ka nabadgelyo qabto oo aanu adna ku cunin wuu farxay ninkii markuu warkaa maqlay oo wuxuu yidhi maalin ila joog aan qado kuu sameeye ninkii biraha lahaa wuu yeelay oo waa aqbalay martiqaadkii ninkii maalintii la martiqaaday ayuu tegay oo wuxuu afduubay wiil yar oo ninku dhalay wuxuuna ku qariyay gurigiisii waana soo noqday si martiqaadkii uu yimaado awgeed ninkii ayaa yidhi war wiil aan dhalay ayaan waayay ee waxba ma aragtay wiil ninkii biraha lahaa ayaa yidhi haa waxaan arkay markaan guriga u soo dhowaa dafo ama baqalye
wiil qaatay malaha waaba wiilkii ninkii ayaa qayliyay oo yidhi war isu soo baxa weligiin tanoo kale ma maqasheen ninkii biraha lahaa ayaa yidhi dhul jiirka joogaan cuni karo 100 xabbo oo xadiid ah waa iska caadi in shimbiruhuna qaadi karaan maroodi taajirkii ayaa yidhi anaa cunay xadiidkaagii oo sun ayaan caloosha gashtay ee wiilkaygii ii keen waxaan bixinayaa qiimaha lacageed ee xadiidkaagii waana yeeleen oo isna wiilkii waa keenay kii kalena lacagtii waa bixiyey faallo tusaalahani wuxuu tilmaan u yahay qofka og khiyaamada uu samaynayo oo naftiisa iyo xoolihiisaba u hura dhagar iyo khiyaano in abaalmarinta alle ay u imaanayso ballanka bixiisa iyo khiyaamadiisa awgeed eebbaweyne wuxuu idin fari inaad u guddaan ammaanada ehelkeeda haddaad kala xukumaysaan dadkana inaad ku kala xukuntaan cadaalad eebbe waxa wanaagsan wuu idinku waanin eebbena waa maqle arka sheekada labaatanaad alxamaamatu almutawaqqa qoolaydii qoorey waxay ka sheekeeyeen in dhul la odhan jiray dastaad oo u dhowaa magaalo lagu magacaabi jiray maaruud oo ahayd meel ugaadhsato ay ka ugaadhsato meeshaa oo uu ku yiilay geed weyn oo laamo badan oo caleemo balballaadhan uuna tuka ku lahaa buulshimbireed tukaha oo magaciisa la odhan jiray xaa'ir haddaba iyadoo maalin maalmaha ka mid ah uu tukihii ku taagan yahay geedka dushiisii ayuu arkay nin fool xun oo ugaadhsade ah oo tuurta ku sita shabag gacantana ku haysta suun iyo ul oo xagga geedka u soo socda tukihii ayaa iskula sheekaystay walee ninkan dabatada ahi waxbuu doonayaa garanna maayo waxa uu doonayo wuxuu yahay tolow ma inuu idiluu doonayaa mise cid kale dhimashadeeduu ka shaqaynayaa balse aan u sugo oo eego wuxuu sameeyo ninkii ugaadhsadaha ahaa wuxuu yimid geedka hoostiisii wuxuuna diyaarsaday dabinkiisii oo waxoogaa sarreen ah ayuu ku daadiyey dabinka hoostiisii iyo hareerihiisii in yar intaan la joogin waxaa soo dul maray qooley magaceedu ahaa qoorey waxayna ahayd boqoradda qooleyda waxaana markaa la socday oo gelbinayay qoolleeyo kale oo badan waxayna aragtay sarreenkii oo may arag dabinkii waa soo degtay oo qoolaydii la socotayna la soo degtay dhammaan waxayna si fudud u galeen dabinkii loo dhigay markii dabinkii la galay mid waliba waxay ku dadaashay inay dabinka ka baxdo keligeed qoorey waxay tidhi ha warwerina hana isdaalinina mid walibana ha ka fikirto saaxiibaddeed oo aan iskaashanno waxaa laga yaabaa inaan wax istarno wada jir ku goyno shabagga dabinka ah ee la inoo dhigay qoolleeyihii waxay yeeleen hadalkii qoorey ee ahaa inay iskaashadaan waanay goosteen shabaggii loo dhigay oo waxay ula duuleen cirka markii ay goosteen dabinkii ayuu ninkii ugaadhsadaha arkay oo ku hambabaray wixii ay sameeyeen wuxuuna bilaabay inuu dabagalo oo eegto meesha ay u duuleen isagoo rajaynayay inay duulayaan wax yar oo keli ah soona dhici doonaan tukihiina wuxuu yidhi waa inaan ka daba duulaa ilaa aan ka arko waxa ay sameeyaan shimbiruhu ama uu sameeyo ugaadhsaduhu qoorey waxay fiirisay xagga hoose mise waxay aragtay ugaadhsadihii oo daba socda waxayna qoolleeyadii kale ku tidhi waa kanoo waa inaga daba yimi isagoo ina doonaya ee haddii aynu koru duullo geedaha dushooda wuu ina arkayaa oo ka dhuuman kari mayno isna inaga hadhi maayo ee haddii aan hoos u duullo oo geedaha isku qarinno wuu ina waayayaa oo waa inaga quusanaya waxay kaloo tidhi jidka agtiisa waxaa god ku leh jiir aan saaxiib nahay haddii aan u tagno wuxuu inaga googoynayaa xadhkaha shabagga wuuna inaga soo saarayaa shabagga inagu duuduuban way yeeleen taladeedii iyo wixii ay u sheegtay waanay ka dhuunteen ugaadhsadihii wuuna ka quustay oo dib ayuu isaga noqday tukihii wuu daba kacay oo waa eegay in qoolaydii ay samaysay xeelad ay kaga baxsato wixii ay khatar dhex dabaalanaysay wuxuuna ka bartay wax u noqotay cibro uu ku baxsado haddii ay soo marto waxaa wax la midihi haddaba markii ay soo gaadheen meeshii uu ku noolaa jiirku ayay amartay in la dego waanay degeen oo waxay aragtay 100 god oo uu qotay jiirku si uu ugu beendhuunto haddii uu boqo
oo cabsi dareemo way u qaylisay qoorey jiirkii oo magaciisa oo ay taqaanay ayay ugu yeedhay magaciisuna wuxuu ahaa sayrak wuxuuna ugu jawaabay godka hoostiisii oo wuxuu yidhi waa ayo markaasay ugu jawaabtay waa qooleydii qoorey markaasuu soo baxay isagoo degdegaya markii uu arkay shabagii ay ku jirtay ayuu yidhi naawalaaley maxaa mushkiladan qoorta kuu geliyey adigoo ka mid ahaa kuwa caqliga wanaagsan waxay ku tidhi oo ugu jawaab celisay miyaadan ogeyn in wanaag iyo xumaani kuu qoran yihiin oo meel kugu sugayaan ha badnaadeen ama ha yaraadeen lama seegaanku waa tii i heshay oo qoorta ii gelisay shabagan oo i tustay midhaha sarreenka iina qarisay dabinkii shabagga ahaa ee naloo dhigay aniga iyo saaxiibadahay jiirkii wuxuu bilaabay inuu googooyo meeshuu ku beegnayd qooleydii qoorey markaasay ku tidhi war iyaga qooleyda kale dhankooda ka bilow oo aniga ii dambaysii wuu ka dhega adeegay markaasay ku celcelisay marar badan markaasuu yidhi waxaad igu celcelisay iyaga ku horree oo waxaad ma mooddaa inaan naftaada daniba kaa hayn oo aanay xaqba kugu lahayn waxay ugu jawaab celisay qoorey yay ku dhibin waxaan ku weydiistay waayo waxaan iyaga u ahay madaxnimaduna agtayda way ku weyn tahay wayna ka soo baxeen wixii aan xaqa ugu lahaa oo ahayd inay i yeelaan iina wanaajiyaan wax u sheegayga iyaga daacadnimadoodii iyo kaalmadoodii wanaagsanayd ayaana ilaahay nagu badbaadiyey oo nooga badbaadiyey dhibaatadii ugaadhsadaha faallo tusaalahani wuxuu tilmaan u yahay qiimaha ay leedahay iskaashigu waayo qofka muslimkaa wuxuu ku xoog iyo taagba leeyahay walaalkii waana tan alle quraanka ku yidhi acuudu billaahi min ashaytaani arajiim watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaani wattaquu allaha ina allaha shadiidu alciqaab